badan iyo cabsi ayaa soo food saartay dhammaan cid kasta oo isticmaasha taleefanada casriga ah kadib markii la ogaaday in xogahooda gaarka ah ee fariimaha iyo codadka la dhageysan karo lana akhrisan karo iyadoo aanan qofna ogolaasho la weydiisan. sida ku cad cilmi baaris ballaaran oo la sameeyay shirkadda Google waxay muddaba la socotay cidda aad kula hadlaysay taleefankaaga iyo fariimahaaga SMS-ka haddii aad isticmaalaysay barnaamij hooleedka Android jiyo aan qofka ogolaasho laga helin ama xitaa aanan la siinin ikhtiyaar uu uga baxo ama iskaga xiro abiska basaasaya. Douglas J. Leith oo ah professor wax ka dhiga Trinity College Dublin ayaa arrintan ku kashifay daraasad ciwaan looga dhigay What data do the Google dialer and messages apps on Android send to Google taasoo ku tumanaysa xeerka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee dhigaya in qofka aanan xuquuqiyaadkiisa lagu gafi karin. Professorkan daraasadda soo bandhigay ayaa waxa uu cadeeyay in xogta ay Google soo diraan fariin wadayaasha Google iyo Google dialer ee Android. sidoo kalena waxa uu daraasadiisan ku sheegay inay ogaadeen in abkani u sheegan Google marka fariinta taleefanka la soo waco ama la diro. xogta uu diro fariin wadaha Google ee Google Messages waxaa ka mid ah hashka qoraalada fariinta taasoo u ogolaanaysa isku xirka soo diraha iyo gudoomaha fariimaha la isdhaafsanayo. ayaa uu aqoonyahankan intaasi raaciyay xogta uu dirayo Google dialer waxaa ka mid ah waqtiga wacitaanka iyo muddada la wada hadlayay waxaana markiiba la baarayaa labada taleefon ee ku hoolan wacitaanka taleefanka ayuu yiri. marka Google uu garanayaa waxa uu yahay awowga oo ku nool Ohio sidoo kale waxay og yihiin in qof California jooga uu soo wacay inta ay wada hadleen iyo xitaa waxa laga yaabaa inay ogaadaan wixii laga wada hadlay. wuxuu Leith sheegay inay arrintan u bandhigeen Google ka hor intaysan daraasadda daabicin oo ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan oo ay isbedelo badan ku sameyn doonaan abiska fariimaha iyo wicitaanka Messages and dialer apps balse aysan u badnayn inay arrintan ku dhaqaaqaan sida horeba u sameeyay milkiilaha MetaMask Zuckerberg oo lagu qabsaday xadgudubyo khusuusiyaadka gaarka ah ee dadka adeegsada Facebook, WhatsApp iyo wixii la mid ah.